Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu guys soo dhawaada youtube channelka ninka daawan soo amalas official fadlan channelka hadaa ku cusub tahay subscribe noo saar aad iyo aad u mahadsantahay waa tahay maanta iyo muuqaal cusub maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay football 2024 oo update-kiisa cusub oo soo bixi doono mar badan waxaa la dhihi jiray update-kii weynaa ayaa soo dhow laakiin ugu dambeyn waxaa imaaday football 2024 update-kiisa afar qodob oo laga baahan yahay in aad samaysato update-ka ka hor football 2024 maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay update-ka ka hor waxyaabaha laga baahan yahay in aad samayso iyo update-ka kadib waxyaabaha cusub ee base lagu soo kordhin doono in aan muuqaalkan ku wada aragno fadlan haddaa channelka ku cusub tahay subscribe noo saar oo ka mid noqo asxaabtii mar walba nogala socon lahayd page-kan marka haddaad hore noola joogtin muuqaalkan like saar siina share garay si gaarsii asxaabta base isticmaasha si ay muuqaalkan uga faa'iidaystaan qodob koowaad oo laga rabo inaad sameyso intuu update-ka u bixin base-ka inaad inbox-ka ayaa waxyaabaha kula jiro dhan aad la baxdaa haddii ahaan lahayd GB ama coins ama training ama ciyaaryahan free lagu siiyo haddii kugu jiro lahayd waayo haddii base-ka update loo diro waxyaabahaasi oo dhan update-kii ayay raaci doonaan waxaa laga yaabaa inay markaa adoo isdhehaysid update-ka kadib waxaas kala bax inaad meesha ka wayso sababtoo waxay tahay haddii update-ka loo diro waxyaabahaasi oo dhan way kaa baxayaan oo dib dambe uma arkaysid inta update-ka loo diray waa inaad kala baxdaa haddii ahayd GB ama training ama coins wixii kugu jiraba qodobkeena labaad waxaa noqon doonaa base-kaaga inuu ku xiran yahay Google Play iyo wuxuu kugu xiran yahay Konami ID haddii oo labadaad midkood uu kugu xiran yahay waa heli kartaa shaxdaada haddii oo labadaadba kugu xirnayn base-kaasi ama shaxdaasi dib dambe u arkayso muhiimad marka waxaa waaye inuu kugu xiran yahay Konami ID waayo dadka badan Google Play ma ku xirtaan man ugu xirnaa marka asxaab badan soo weydiinayso qaabka loogu xirto Google Play marka muuqaal hore ka sameeyay ayaa jiro muuqaaladeena dib u raac meeshaas ayaad ka helaysaa marka muhiimada marka waxaa waaye inuu kugu xiran yahay Konami ID waayo Google Play haddii kugu xirnayn ama haddii kale isku mid waaye haddii oo ID-gaaga oo Konami ah hayso Gmail-ka iyo password-ka ayaad gelinaysaa kadib sidaas ayaa shaxdaada ku helaysaa qodobkan saddexaad waxaa waaye rating-ka asxaabe shaxdaada ciyaartooyda waa inaad siisataa rating-ka waayo hadda rating-ka ciyaartooyda haddii la siiyo wuxuu gaaraa qaarkood 100 ayuu gaaraa qaar ilaa 96 ama 99 98 meelahaas ayuu gaaraa waa inaad siisataa waayo base-ka update-ka dambe rating-ka wuxuu noqonayaa inuu GB isku bedelo oo aad gadato waxaa laga yaabaa inaa 5000 6000 GB in lagaa siiyo marka had intuu free yahay waa inaad rating-ka ciyaartooyda aad siisataa inta update-ka loo diray qodobkeena afraad waxaa waaye asxaabey base-kaaga oo kugu jiro ha iska daleedin haddii update loo diro base-kaaga taleefankaaga ha kugu jiro ha iska daleedin waayo asxaabta qaar waxay sameeyaan update maa loo diraa game-ka iska daleeda markii update-ka kasoo laabtaa soo degsaa haddii markaas waxaa laga yaabaa inay kugu adkaato oo GB badan ama maskax badan oo kaaga baahdo marka hadda haddii base-ka oo kugu jiro waxaa sameynaysaa 1.5 ama 1.6 GB u banay kadib aad dhowti markii update-ka oo soo baxo kadib update kadib base-ka sidaas ayuu kugu shaqeynaa okay asxaabe afarta qodob ugu muhiimsan update-ka ka hor intaas ayuu ahaa marka update-ka kadib waxyaabaha cusub imaan doona muuqaal kale ayaan kasoo sameynaynaa haddii oo muuqaalkan 100 like oo gaaro waxaan kasoo sameyn doonaa muuqaalka xiga oo update-ka kadib waxyaabaha imaan doono marka haddaa channelka ku cusub tahay subscribe noo saar oo ka mid noqo asxaabtiina gaarsiin lahayd 10k subscribe aad iyo aad u mahadsantihiin hadda muuqaalkan intaad la soo gaartay waxayna ballanaa muuqaalka xiga sidaas iyo nabadgelyo